golaha wasiirada ee dowladda federaalka golaha wasiirada ee dowlad goboleedyada diiwaanada sharafta leh ee labada aqal ururada bulshada culimada dhalinyarada iyo bahda saxaafadda kulli waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore allah macskare oo noo suurtageliyey caawa in wixii aan ka shaqaynaynay dhowr casho horeyna ay waareen u joogeen 15 casho in ku dhow ay noo soo gabagabowdeen qeybtii hore haddana aan u ballansannahay inaan isu imaano kulan oo soo socda hadduu ilaahay waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne boqor iyo howlwadeennadiisa iyo golihiisa wasiirada iyo guud ahaan shacabka iyo magaalada dadka degan dhuusamareeb sida sharafta leh ee waartinimada leh ee kalgacaltooyada leh ay noo soo dhaweeyeen intaasoo qofka oo marti ah ay gudahooda u fureen oo gacmahooda u fureen aad iyo aad yaan runtii uga mahadcelinaysa. xaqiiqatan muddadii yarta ahayd uu joogay iyo waxa uu qabtay waxa isu dhow maaha. 6 bilood uu joogay runtii wuxuu muujiyey leadership iyo hoggaan wanaagsan wuxuu ka bilaabay inuu isku soo leexiyo oo raadiyo dadkii ka fikrad wanaag oo qaar ka mid ah waa naga soo bixiyey taas waxay muujinaysaa koorin inuu isku kalsoon yahay iyo waxa uu rabo inuu u qabto gobol isagoo aan fiirinaynin qalan ra'yi iyo wanaagshaha siyaasadeed. wuxuu xogwarka ku tegey degmooyinka iyo duulooyinka iyo magaalooyinka si uu u soo ogaado xaaladda ay ku jira iyo baahidooda. taasi waxay runtii u suurtagelisay muddo 2 bilood loo ogaado uu dowladda dhexe rikoor u soo diro baahidooda. baahida ay qabaan baahi aad u badan weyn oo u baahan wax alla wixii karaankeenna ah inaan gacan ka siino dhan walbaba hadday tahay horumarin hadday tahay iyo dhinac walba aan ka kabno. waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda inay ku siiso muhiimad gaar ah ayna raadiso si kasta ay galmudug u caawin karto. kulankaani wuxuu daba socday kulamo hore oo naga dhaaqday oo dhowr jeer intaan ballannay ay suurtoobi weyday sababo dartood. markale waa u mahadcelinayaa inuu dhibka saartay isagoo muddo yar jooga inuu dhaafo mas-uuliyad isagoo dhaqaale iyo organisation dhammaystiran ba aan lahayn. alxamdulilah hadda waxaan aragnaa madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka reer galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan dibadhiska gobolka. annaguna waa naga ballan wax alla wixii kaankeenna ah waa wada garab taaganna. maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu nimid inaan ka wada hadalno oo aan inaan isdhegaysanno kalraadiyaanashaheenna aan soo qaadanno aan isu tanaajulno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka carruurteena aan uga hadalno. waxaan rabaa inaan waxyo ka idhaahdo
muhiimadda aan halkan soo nimid waa la taataabtay waxaa laga hadlay shakhsiyaad ama dad raba in ay doorashada ku soo noqdaan ama boqolka qaba intaas waa ka weynta shakhsi iyo rabitaankiisa waa ka weynta anigu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aanan dalka hore uga dhicin waxaa ka horreeyey doorasho oo dhaqameedyadu ay soo xulayeen labada waayaday culays badan yaa saarnaa dadkuna waxay qabeen walaahow wareer qaarna waaba waalnaayeenba siday ugu soo noqon lahaayeen sababta wax kala maaha nidaamka lagu soo noqonayo waa la garanay waa lagu qanacsanaa 2016 nidaamkii lagu yimid maxaa yeelay nidaam hore loo yaqaano ma ahayn waxay ahayd nidaam lagu heshiiyey oo wada ogolaahay wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyo oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dadbaraa sida dastuurka uu qabo oo ah doorasho toos ah ama qof iyo coda dad badan yaa waxay qabaan inaan runtii aan ka gaabinay oo aanay waxba ka qaban oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020 aan soo baraarugin oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya xaqiiqatan hawsha hadda aan u fadhino waxaan soo bilaawnay markii la doortay maxaa yeelay waxyaabihii lagu siiyey mandate yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod afar bilood markaan joognay yaa waxaan samaynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen dowladahii xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa ugu aqoonta badnaa ugu xirfadda badnaa annagana waxaan soo dirsannay kuwaniina ugu fiicnaa yaan soo dirsanay muddo hal sano ah iyo ka shaqaynayay waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonnay London Conference waan bilawnay guddigaas inay hawl galo Nairobi ku jiraan Jabuuti ku jiraan dowladgoboleedyada ku jiraan xamar bay ku jiraan waxay keeneen waxaan u dirnay 4 ajenda yaan u dirnay inclusive politics ay ku jirto qof iyo cod anigu waxaan rabaa inaan xog iyo siiyo sida waxay yihiin inaan wax kugu sheego isku oo ah doorashada loo dhan yahay oo ku jirto nidaamka aan isku dooran doono sida dastuurku qabo waxaa ku jiray khayraad qaybsi dastuur hubnihiisaa ku jiray waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray shaqadii ay qabteen miraheedii waxay soo dhammaatay laba ajenda juun 2018 annagoo ku wada qaracsan iyo waxay noo keeneen qorshihii doorashada qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii iyo sidii aan khayraadka u qaybsan lahayn macnaheedu waxay tahay waxaan bilawnay maalintii aan nimid xukunkaan bilawnay in dalkaan u diyaarino election soo socda direct election ama election toos ah oo qof iyo coda meeshaas way meesha ay wax ka bilowdeen annagoo wada soconna oo raalli isaga ah oo ku qanacsan oo weliba ku faanayna inaan bilownay processkii waqti aad u horeeya wasiiradii maxaan ku idhaahdaa sharcigii aan keennay golaha wasiiradu waa si gudbiyeen waxay u gudbiyeen baarlamaanka sharcigii annaga aan gudbinay maahae baarlamaanku intay fariisteen oo muddo qaateen iyo waxay soo saareen sharcigii aan geynay mid ka duwan oo aan shaqo ku lahayn waxa keliya soo mid ahaayeen ay ahayd doorasho qof iyo coda keliya
أريد قف وعي وبدي أستمر أهلا حساري هل قف وعي مجرى مع الله الله وأن أريد وارتوني أنه أنساني وأحساسها معي تسمع قادتها إيانا اللي نفسي جيلة وإحنا لا عراية وإحنا لا صدحين كان هذا ياله وحال لها مدحوينه يدين دونا بعدما دورها كيهر مد أنسان التشيء تعتبر التشيء لكن شعب دونها سوماليين يغفر بوحان وعدين كل كيان تسليم سنحين لكن أنسان هذه بلد الهرين تعوني وتعريف أسمه الظلم مخبر عسره محال ولي محال ولها إن أن نجي نقول من نجي عن هروس ومرين وهذا كله قلنا ملقوا أمانه إن أنه يحب مرين وماشي لما نكون نتوفى الجنة ووقت منه وفلاس منه الرئيس الكفاره إياه وحران جار ما كفاره كره ولم يكن لم يتوفى الجنة كفاره كره أنا وحناه الجمال مرت إيش هشوف حقه وأنكش قوله معلوم فينا ندورته إلا ما توحكوه الله شعبك حديث شعبك هي دولة وإن حوجيه وإن أود الشعب المعلم وإن شعبك أيهين صبر بس بين الصلاة أو بس الصلاة مجموعين وشعب واسع لابطر واسع وهي أمسيه إلى أن دور شخص بعدما وحال الله دورشاها اللي قاموا هو لا سمري